uga shaqeeyo arrintaas saameyn xoog leh ayay ku leedahay taas oo saameyntu waxay noqonaysaa marka haddii waalidku uu ka shaqayn waayo ilmihiisa inuu caafimaadkiisa ka shaqeeyo oo caafimaadka sida aan u haysano maaha waa shaqo joogto ah oo laga shaqeeyo oo min bilow ilmaha markuu dhasho ilaa uu ka qaangaaraya laga shaqeeyo maaha kaliya inuu markuu xanuunsado un dhakhtar la geeyey waa in cunadiisa laga fikiraa waa in laga fikirayaa shaqada wuxuu qabanayo waa in activitigiisa laga fikiraa waa inuu waxa uu baranayo laga fikiraa waxaasoo dhan ayaa waxay noqonaysaa caafimaad qabka iyo badqabka ilmaha oo taas saameyn toos ayay ku yeelanaysaa xagga waalidka saameyn ayaa kaga imaan karta waxaa kaloo iyadana saameynta ka mid ah dhaqaalaha bulshada iyo sida uu yahay yacni maalan adduunka waa la kala dhaqaalo buuran yahay waddamada dhaqaalahooda oo aad u xoogan yahay oo kharash aad u fara badan geliya maalan maraykanka oo kale oo $640 bilyan sanadkii geliya budgetka dowladda carruurta iyo sida loo daryeeli lahaa iyo East Africa oo waddan ku yaala oo aan kharashkaas iyo kharash u dhowba gelin aan wacyi u lahayn garaad u lahayn dhaqaalahaas aan gelin macnaha way kala duwan yihiin waxaa taas sidoo kale ka mid ah bulshada dhexdeeda laftirkeeda dadka dhaqaalaha haysta oo adeeg fiican ilmaha gaarsiin kara ama caafimaadkooda ka shaqayn kara iyo dadka aan dhaqaalaha haysan oo adeegooda yani adeeg gaarsiin karin caafimaad way ku kala duwan oo saameeyna kala duwan ayay yeelanaysaa marka saameynta way intaas oo dhan oo laga shaqeeyo oo si hagaagsan looga shaqeeyo oo wax laga bedelo oo wixii positive ah oo hagaagsanna la sii hormariyo wixii saameyn taban oo ilmaha taabanayana la yareeyo oo meesha laga saaro waa badqabka iyo caafimaadka carruurta oo laga shaqeeyey doctor marka la eegayo khibradda ama intii sanaad ku soo jirtay mihnada caafimaadka ma jiraan waxyaabaad gooni adigu experience gareysay ama kula kulmay haddii jiraan waxyaabaha ugu